وقصة ير oo kooban laakiin murtida ay wadato ayaa mid aad u weyn. Qisadani waxay ku saabsan tahay aabe iyo wiilkiisii. Aabuhu waxa uu ahaa mid aad u akhriyo Quraanka maalin kasta. Wiilkiisii yar ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxa uu ku yidhi: "Maxaad u akhrinaysaa Quraanka haddii aadan xifdiyin si ay xushmadi ku dheehantaa?" Aabihii ayaa wiilkiisii ugu jawaabay: "Aabbo, saladii dhuxusha qaad oo biyo ku soo dhaami." Wiilkii ayaa yaabay oo ugu jawaabay aabihii: "Aabbo, salada dhuxushu way wada dalooshaa oo biyo laguma soo dhaamin karo." Odaygii aabaha waxa uu ku yidhi: "Orod isku day." Wiilkii yar isagoo og in aan saladii biyo lagu dhaamin karin, haddana raali gelinaya aabihiis, ayaa waxa uu dhaqaaqay dhanka badda. Waxaanu qaatay saladii, waxaanu ku soo noqday aabihii. Kolkaasuu wiilkii yar yidhi: "Aabbo, salada biyo laguma dhaamin karo, waayo mar kastoo aad istiraaba dhaami, hareeraha ayay ka sii deynaysaa iyadoo bacdu way wada dalooshaanba jawaanku u daloolaa." Odaygii ayaa waxa uu ugu jawaabay: "Aabbo, intii aad biyaha ku dhaaminaysay salada dhuxusha, wax ma ku aragtay?" Wiilkii yar ayaa yidhi: "Haa, waan ku arkay. Dhammaan wasaqdii ay wadatay saladu way ka wada maydhmatay intii aan biyaha soo dhaaminayay. Saladiina waxay noqotay mid nadiif ah." Aabihii ayaa waxa uu ugu jawaabay: "Aabbo, qofka Quraanka akhriya, dhammaan wasaqdaas oo kale ayaa ka wada daadanaysa qalbigiisa. Ilaa qofka Quraanka akhriya uu nadiif noqdo yuusan ba xifdina." وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.